ayaa waxaa la ii keenay cunugan yarka waxaa ii keenay wiil aan habareer u ahay. wiilka yarka waxaa laga keenay luuqa Cabdiqaasi nin baa waday dhaheen hooy inta dhigaan dhahay sidii uu igu dhigay waa aan haayay. habeenkii la keenay horta muuse hadleenin juuqalmana ooyneenin. xalay wuxuu bilaabay ooyin ilaa salaad subax baa ooynayay. cunugga marka waxaa haayaan isleeyahay aniga jirada ilmaha xanuunka ayuu qabay. markii aan warsaday muxuu ahaa ninka aan irin inaa wada liiri cunugan ayaal badan oo albanooni ah ka hor yimid hagee wada cunuga markay dhaheen waxa uu yiri dhakhtar aan u wadaa waxaan u siiyaa kabacdi wax yar kabacdi ilmihii markay ka tageen cunugii wuxuu dhigay meesha luuqa qashinka ilmihii arkay ilmihii waxay yiraahdeen war ninkii cunuga hadda uu waday wuxuu dhigay luuq wuuna ka tagay. assalaamu calaykum waa idin salaam asxaabta kusoo dhawaada muuqaal cusub. canugan yare idin muuqdo oo da'diisa lagu qiyaasay 2 bilood jir ayuu banaanka kusoo tuur aabihii dhalay waxa uuna soo dhigay meel qashin uu yaalay oo u dhaweeday wadada Cabdiqaasin. canugan yar ayaa hadda reerka gacanta ku hayo waxa ay codsanayaan in uu la soo xiriiro qof kasta oo rabo inuu canugaasi korsado. canuga ayaa la xaqiijiyay in uu madaxa ka xanuunsan yahay. fadlan daawada muuqaalka laagsaar fiidiyowga sii shargaray sababta keenta canugan inuu soo tuur aabihii dhalay ayaad ku maqli doontaan fiidiyowgan. waad mahadsantihiin. maamada guriga ayaa waxaa la ii keenay cunugan yarka waxaa ii keenay wiil aan habareer u ahay. wiilka yarka waxaa laga keenay luuqa Cabdiqaasi nin baa waday dhaheen hooy inta dhigaan dhahay sidii uu igu dhigay waa aan haayay. habeenkii la keenay horta muuse hadleenin juuqalmana ooyneenin. xalay wuxuu bilaabay ooyin ilaa salaad subax baa ooynayay. cunugga marka waxaa haayaan isleeyahay aniga jirada ilmaha xanuunka ayuu qabaa. wax kale oo qabo oo sharci ma jirto. waa cabaya caanihiisa caafimaadkiisa kale waa iska fiican yahay. hurdadiisa waa fiican tahay. laakiin madaxaas uun dhibka ka jira ma ogi wax kaloo cilada uu leeyahay haba yaraatee ma jirto. aabihii gurigan iska lahaa waaye cunugan meesha la soo dhigay la soo qaaday la keenay habeen hore taraawixda markaan ka soo baxay oo guriga aan imid waxaa la sheegay cunugan oo gurigan Cabdiqaasin luuqiisa iyadoo lagu soo tuuray ee la soo qaado guriga la keenay. marka wiil yar oo abti aan ahay soo qaaday markii aan warsaday muxuu ahaa ninka aan irin inaa wada liiri cunugan ayaal badan oo albanooni ah ka hor yimid hagee wada cunuga markay dhaheen waxa uu yiri dhakhtar aan u wadaa waxaan u siiyaa kabacdi wax yar kabacdi ilmihii markay ka tageen cunugii wuxuu dhigay meesha luuqa qashinka ilmihii arkay ilmihii waxay yiraahdeen war ninkii cunuga hadda uu waday wuxuu dhigay luuq wuuna ka tagay. ilmihii dib ugu soo laabtay wiil yar marka abti soo qaaday cunugii sidaas xaafadda lagu keenay marka sidaas uu ku jooga waana kaasa cunuga hadda awjeed. canugan oo ku jiro da'da 2 bilood jirka ayaa waxa uu madaxa ka qabaa markaas xanuun oo loo maleynayo in uu madaxa biyo uga jiro. canugan aabihiis ayaa la xaqiijiyay in markaas ay u soo tuuran cilada uu canuga yar madaxa ka qabo. inta uu canuga soo tuurin ka hor waxaa la arkayay aabaha oo canugiisa xambaarsan waxa uu ciyaalka xaafadda u sheegay in canuga markaas uu u wada dhakhtar uu xanuunsan yahay. laakiin muddo kadib waxaa dhacda saacado kadib in uu isla bartii luuq kamid xaafadahaasi uu dhigay canugii. haddaba reerkan marka canugani hayo ayaa waxa ay codsanayaan qof kasta oo rabo inuu canugani korsado in markaas ay la soo xiriiraan. ayagu waxay sheegeen inay yihiin reer tabar yar oo aan awoodin canuga mas'uuliyadiisa in ay qaadaan. sanayo qof alla qofkii daryeelayso inaan ku wareejiyo sababtee taani ma hay kari group ilma baa ii joogo maxafidi kale daryeel buu rabaa xanaano rabaa mas'uuliyadiisa in qaadida la rabaa caafimaad buu rabaa istaan in la geeyo la ogaado. marka saas ayaan waxaan ugu codsanayaa bulshada Soomaaliyeed inay iiga waxaan u sheegay horta ummadda Soomaaliyeed ilmaha nooc walba ku dhashaan annaga waalidiin baan nahay waxaan u sheegaynaa ilmaha dayacada tirada badan ee lagu sameynayo oo meelaha lagu tuuray horta dadka inay iska ilaaliyaan maadaama aan dad islaam nahay cunuga mar haddii uu dhasho sifadu raba ku dhashay waxaa wanaagsan in ilaaliyo xuquuqdiisa ilaahayna looga cabsado la koriyo xuquuqdiisa la siyaa wanaagsan. midda kale waxaan halkan ka codsanayaa wiilkaas yarka la soo dhigay annaga xaaladeen waa iska islaanta gurigan joogto qof iska mashquulsan oo xaaladeeda iska mashquulsan waaye canugan u jeedin waa nin xanuunsan wuxuu u baahan yahay qof la tacaalo oo xuquuqdiisii iyo isbitaal la geeyo ama meel quraan saar la geeyo oo tacaal badan la sameeyo rawaadadaal badan loo sameeyo sidiis kale uu roon yahay. hadda annaga intuu nala joogay caanihiis wuu cabayaa oo hintiis way fiican tahay marka soole wuxuu u baahan yahay xanuunkaas lagala tacaalo oo marka waxaan u baahanahay qof xafido oo xafidi karto aan ku ogaano ayaan codsanaynaa in la helo.
markii ugu horeysa ma aha oo canug yar oo saqiira lagu soo tuuro bannaanka xaafadaha muqdisho xaafad ka mid ah dhowr mar oo sii horeysa ayaan wada aragnay sidoo kale waxaa wax aad looga xumaadaa qof weyn oo sheeganaya waalid islamarkaasna muslim ah in uu canug yar bannaanka kusoo tuuro xitaa waxaa laga yaabaa canugaas uu bannaanka dhigay in ay bahalo cunaan sida eeyo oo kale sida aan horey u aragnay ilmo yaryar oo bannaanka lagu soo tuuray oo gacan ama lug uu eey ka goostay dad in uu u gacan gala ka hor waxaaba ka horeysa in canugaasi markaasi uu bahal cuno haddii bahalka ilaahay uu ka badbaadiyo ayuu qof bini'aadana la kulmi karaa canugan yar qof kasta oo rabo in uu korsado ama noloshiisa kafaala qaadi karo waa uu la xiriiri karaa reerkan rabo in markaasi canugaas yar lagala wareego runtii aad baa uga xumahay markii ugu horeysana ma aha ilmo yar oo markaasi bannaanka lagu soo tuuray sheekh shibli allah xafidee waxa uu yiri canug aadan jadwalkiisa diyaarin sida waxbarashadiisa halka uu seexan lahaa iyo cuntadiisa waxaa kaaga qeyr badan in aadan dhalinin waayo canuga xaq ayuu kugu leeyahay inta uu yaryahay waalidiinta ayuuna xaq u leeyahay sida hooyada iyo aabbaha marka hooyada iyo aabbaha haddii canuga xaqiisa aysan kasoo bixi karin ayuu yiri inay iska daayaan ayaa u qeyr badan 4 bilood ka hor waxaa jirtay canug yar oo runtii aad u qurux badan in bannaanka lagu soo tuuray fiideo ayaan ka soo sameeyey aabbo Soomaaliyeed oo markaas xaaskiisa ay xaamile aheeday ayaa canugaas yar gacanta ku dhigay waxa uuna sheegay aabbahaas inuu canugaas korsan doono hooyada marka ay umushana ay naaska u nuujin doonto si markaasi canuga uu ula noolaado aad ayay u fiican tahay canug yar oo reerkoodii ay garteen inay soo tuuraan haddii qof markaasi korsanaya la helo waa wax wanaagsan inta uu bahal cuni lahaa waa idin mahadcelinayaa daawadayaal fadlan muuqaalka laagnoo saara fiidiyoga la sii share garay haddaa cusub tahayna soo dhawo ayaan ku leeyahay oo channelka subscribe saar gambaleelkana rukumo si aan markasta u heshid muuqaalada cusub soo geliyo haddaa hore noola joogto nala sii joog waa mahadsantihiin